السلام عليكم وأمير إبراهيم كسود هذا مقال كله سيدا أقنع ودنك مريكن كواحد كجرتو دورشو وحيد دورنا يعني مدحوين عصب أما ترامب ها نقطة أما هاريس ها نقطة هذه تريلس أنا هاي سيدا نوسا مين كرتا أوكي وحأقنع سوقا حيليدا أنستنتيا أما إيفنتي نوعا إيجران إن سوقا سامين كلها واللي هو ودنك مريكن كمركيرا أو ودمدا أدين وقول قالا وين سودو كلنا لعيت الدولار كو كينج أو لعيات أن بقر أو تاي سامين وين أي نوية لدونتا laakiin sida warbixinaha iyo khibradu waxay sheegayaan in Trump uu fiican yahay lacagta dollarka halka Harris lacagta dollarka ee ku tahay dovish ama bearish sababtoo ah Trump wuxuu rabaa markuu xilka qabsado xagga fiscal policy-ga iyo tariffs-ka inuu xoog saaro taasoo keenaysa in lacagta dollarka ay awood yeelato sidoo kale waxaa kaaga digayaa in aad reergeysid xilliyada noocan oo kale ah sababta suuqa marba news waxay soo baxaan left and right ma ogaan kartid maxaa la yiraahdaa move-ka saxda ah unless waxaan dhan ay ka dhamaadaan kadibna suuqa direction u yeelatid marka waxaan ku leeyahay taxadar isbuucan ma isbuucada suuqa lagu cararo news badan ayaa jiro sidoo kale waxaa dheer risk eventiga oo sidaan oo kale ah marka insha Allah inta oy lahayd shanaan lahayd stop loss walaal noqoleed waxaan kaaga digayaa in ay taxadartid sidoo kale suuqa ilgoonis ka fiirisid wixii lacag sameyn ah ayadana gadaal dambo marka waxa kaaga dambe